بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كوسو دوادا wararka habeenimo ee xogta ciyaaraha qodobada aad kula socod doontaan waxa kamid ah Chelsea oo finalka koobka Europe League weynaysa mid kamid ah xidigaheeda ugu muhiimsan kooxda xidiga kooxda Liverpool ee James Milner oo shaaca ka qaaday in uu aflagaado u geysay ciyaaryahanka Barcelona ee Leo Messi Ma United oo lagu wargeliyay in 105 milyan oo gini ay bixiso hadii ay doonayso xidiga u ciyaara kooxda Benfica ee Falakis Marouche Sarri tababaraha Chelsea oo heshiis la gaaray maamulka kooxda Juventus si uu u noqdo macalinka cusub ee kooxdaasi Manchester United oo leeyahay waxa ay isaga hartay raacdadii ay ugu jirtay Manchester United qodobadaas iyo qodobo kale ayaan daawadayaal caawa idinku haya wararka habeenimo ee xogta ciyaaraha markale soo dhawaada xidiga qadka dhexe ee qaranka Faransiiska iyo kooxda Chelsea ee N'Golo Kante ayaa ka soo kabanaya dhaawac kubka ah waxaana uu sare u qaaday tababarkiisa si uu taan buuxda ugu noqdo kulanka finalka Arbacada laakiin Kante ayaa dhaawac kale uu soo gaaray taasoo walwal dhab ah ku abuurtay tababara Marouche Sarri oo kiiska dhaawacyada ay sii kordhayaan ka hor finalka Europe League dhaqaatiirta kooxda Chelsea ayaa baaraya inta uu leeyahay dhaawac cusub ee soo gaaray N'Golo Kante laakiin waxa ay u muuqataa inuu seegayo finalka Europe League horay waxa kooxda uga maqnaa oo la xaqiijiyay inay seegayaan Europe League Antonio Rudiger difaaca qalbada dhexe ee kooxda Callum Hudson-Odoi oo daayarka kooxda iyo Robin Loftus-Cheek kuwaasoo dhammaantood la xaqiijiyay inay seegayaan Kante ayaana walwal weyn oo ku abuuray maadaama uu muhiim u yahay kooxda qadkeeda dhexe waxay taasi ka dhigan tahay in ay markaasi xadidmayso doorashada qadka dhexe ee Chelsea oo ay joogaan Jorginho, Ross Barkley iyo Matteo Kovacic Chelsea ayaana u duuleysa Baku maanta ama berri iyadoo Arsenal ay halkaasi gaareen Sabtidii shalay ahayd iyagoo sii bilaabay oo diyaar garowgooda finalka Europe League ka oo la ciyaarayo Arbacada soo socota 29 bishan ciyaaryahanka kooxda Liverpool ee James Milner ayaa shaaciyay in ciyaaryahanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi oo aflagaado u geysay intii lagu guda jiray kulankii lugtii hore ee Championka ee ka dhacay gegada Camp Nou Milner ayaa u ciyaarayay Reds kulankii lugtii hore ee semifinalka ee Camp Nou iyadoo xil weyn uu ka saarnaa inuu aamusiyo xidiga reer Argentina ee Lionel Messi waxa uu ku guuleysay inuu sidaas sameeyo qaybtii hore ee kulanka laakiin waxa jiray mar uu ka careysiyay Messi isagoo tackle soo daahay ku qabtay labada xidig ayaana markaasi dood ay dhaxmartay iyadoo ku doodaya garoonka dhexdiisa Messi ayaana ku qaylinayay Milner markii ay u sii socdeen qolka labiska taasoo keentay inuu caayo ama uu ku aflagaadeeyo luqadda Isbaanishka waxaase uusan ka warqabin xidiga Ingiriiska ee James Milner uu ku hadlo luqadda Isbaanishka ma uusan faraxsanayn ayuu yiri Milner oo uu sheegay majalada Mail on Sunday af Spanish ayuu igula qaylinayay waqtigii nasashada markii aan u soconay qolka labiska waxa uu igu yeerayay buuro waxa ay la micno tahay dameer laakiin waxaan u maleynayaa inay tahay erey kubadda cagta Isbaanishka aad looga isticmaalo oo lagu qeexo qof dadka haraantiya waxaan weydiiyay hadii uu fiican yahay laakiin warkayga dheg uma uusan dhigin umana uu maleynaynin inuu ogaa inaan fahmayo luqadda Isbaanishka waxa uu igu yiri qalad ayaad igu samaysay waxaana ugu wacan inaan kubadda lugahaaga ka dhex saaray caradiisa ayaana uga tagay markaas waxaana iska aaday qolka labiska fiiri ixtiraam ayaan u hayaa isaga wuxuu shaqaystay xuquuqda uu ku dhihi karo wuxuu rabo wixii uu sameeyay kulankaasi iyo wixii uu sameeyay waayihiisa ciyaareed oo dhan ayaa ka dhigaysa inay adag tahay in laga hor yimaado Lionel Messi ayuu yiri James Milner hadii aad isku daydo inaad celiso ma ahan inaad markaa ka baqdo inaad doqon u ekaato waa sameeyay sidaas kubadda ayuu lugahayga ka dhex saaray waxaa la daawaday milyan jeer ma ay qofkii ugu horeeyay ee uu sidaas ku sameeyo mana noqonayo qofkii ugu dambeeyay Messi waa ciyaaryahan cajiib ah laakiin waxaan la yaabay sida uu aflagaadeeyay waxa uu ugu yiri dameer ayaa tahay laakiin waxa cajiib ahayd inaan Isbaanishka fahmayay oo aan caruurteyda ugu sheekeeyo James Milner ayaa sida warbaahinta u sheegay macalinka kooxda Benfica Domingos Suarez ayaa u sheegay warbaahinta in aysan kooxdu marnaba doonin inay iibiso ciyaaryahankaasi waxa uu sheegay in aysan doonin kooxdu inay ku iibiso wax ka yar 105 milyan oo gini hadii ay doonayso inuu ka baxo safkeeda waxa uu yiri 100 milyan waa lacag aad u badan welina ma aysan jirto koox Portugiis ka dhisan oo ku iibsatay ciyaaryahan lacag intaas leeg laakiin marnaba ma doonayno
in ay taasi dhacdo oo go'aankeenu waxa uu yahay 105 milyan oo geni in aan ku qarash garayno ciyaaryahankaasi haddii maanta la doonayo in la iibsado ciyaaryahan Joao Felix waxa uu ku kacayaa 120 milyan oo pound oo u dhiganta 105 milyan oo geni Joao Felix ciyaaryahanka kooxda Benfica ayaa wax yar kadib markii macalinkiisu uu sidaas warbaahinta u sheegay waxa uu isaguna yiri waxaan u maleynayaa inay tahay xilligii aan u sheegi lahaa in aan ku wanaagsanahay halkan waxaan ku faraxsanahay inaan halkan joogo waxaan jecelahay kooxdan waxaan jecelahay taageerayaasha faraha badan ee kooxda waxaan doonayaa inaan ku raaxaysto xilligani ciyaarista kubadda cagta waashii ugu wanaagsaneed ee aan ku ciyaari lahayna ee aan ku faraxsanahana waa halkan Benfica ayuu yiri ciyaaryahan Joao Felix kooxda Manchester United ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay aad u doonaysay inay laga soo wareegto ciyaaryahanka Joao Felix ee u dheela kooxda Benfica waxaase haatan kooxda Benfica ay leedahay marnaba ma doonayno in aan iibino haddii ay dhacdo in la iibiyana waxaan ku iibin doonaa ay leeyahay marka macalinka kooxdu qarashaad u sareeya macalinka kooxda Chelsea ee Mauricio Sarri ayaa lagu soo waramayaa inuu heshiis la gaaray 3 sanadood oo uu ku noqonayo macalinka kooxda Juventus maamulka kooxdaasi kadib markii macalinka kooxda Man City Pep Guardiola uu diiday kooxda reer Talyaani Mauricio Sarri macalinka kooxda Chelsea ee haatan isu diyaarinaya inuu markaa maamulo kooxda finalka Europa League ayaa warbaahintu waxa ay ku waramayaan in uu heshiis la gaaray uu ku noqonayo bedelka buuxa ee Massimiliano Allegri iyadoo markaa qorsheynayo inuu isaga tago kooxda Chelsea oo la hadalaya muddooyinkii ugu dambeeyay in laga ciirin doono shaqada kooxdaasi majalada The Mirror ayaa ku waramaysa in kooxda Juventus maamulkeedu ay heshiis 3 sanadood la gaareen macalinkii hore ee kooxda Napoli Mauricio Sarri kaasoo haatan maamulaya kooxda Chelsea oo xilli ciyaareedkii hore ku soo biiray wariyaha u dhashay dalka Talyaaniga ee dhanka ciyaaraha ka faallooda ee Tengredi Palmieri ayaa xaqiijinaya haatan ama ku waramaya in Juventus ay la heshiisay oo ay heshiiska shakhsiga la gaartay macalinka Chelsea ee Mauricio Sarri haatan ay u baahan tahay inay wada xaajood kala gasho qarashaadka ama lacagta markaa ku baxaysa qaadashadiisa kooxda Chelsea ee haatan macalinka u yahay macalinka kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa lala xiriirinayay kooxda Juventus kadib markii macalinka kooxdaasi ee Allegri uu ku dhawaaqay inuu isaga tagayo marka xilli ciyaareedku dhamaado laakiin Pep Guardiola ayaa iska diiday dalabkii kaga yimid Juventus iyadoo warbaahintu ay kul dhaweed qorayeen in Pep uu markaas heshiis la gaaray kooxda Juventus laakiin maamulka sare ee kooxda Man City ayaa si cad u beeniyay in Pep Guardiola aanu noqonaynin macalinka kooxda Juventus weli daawadayaal waxaan ku guda jirnaa wararkii habeenimo ee xogta ciyaaraha kooxda Manchester United ayaa go'aansatay inay isaga harto raacdada ay ugu jirto la soo wareegitaanka xiddiga daada yar ee kabtanka kooxda Ajax ee Mathis de Ligt Manchester United ayaa doonaysay inay soo qaadato Mathis de Ligt si ay ugu xoojiso difaaceeda kooxda waxaana wararku ay sheegayaan in kooxda reer England ay isku diyaarinaysay dalab gaaraya 80 milyan oo euro si ay ugu dhamaystirto heshiiska ciyaaryahankani laakiin haatan way isaga hartay waxaana la shaacinayaa sababtii ay isaga hartay ila wareedyo ka tirsan kooxda ayaa u sheegay shabakada caanka Sky Sport in Manchester United ay ka baxayso raacdada ay ugu jirto ciyaaryahankaasi Mathis de Ligt daafaca kooxda Ajax maadaama xubno badan oo ka tirsan guddiga farsamada ee kooxda ay aaminsan yihiin in ciyaaryahankani uu ku biiri doono kooxda Barcelona kooxda Manchester United ayaa la hadalay maalmihii la soo dhaafay inay tahay kooxda ugu cadcad ee la wareegi karta Mathis de Ligt inkastoo haatan majalada Sky Sport ay ku waramayso in Manchester ay isaga baxday dalabkay ku baacsanaysay ciyaaryahan Mathis de Ligt waa hagaag daawadayaal wararka habeenimo ee xogta ciyaaraha inta hayno joogaan daawadayaal haddii aad ku cusub tahay xogta ciyaaraha fadlan subscribe noo saar page-ka adiga oo comment ka bixinaya akhbaaraadkan soo gudbinay sidoo kalena noo sii share gareeya aad baad u mahadsantihiin